barnaamijka shaqo qaran waxaa himiladiisa iyo hindisihiisa waa iska lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. waxay naga go'aan haddaynu kulmiyanahay inaynu da'yarteena faraha badan ee boqolkiiba 60 mustaqbalkooda ka talino aqoontooda inaynu wanaajino akhlaaqdooda inaynu wanaajino mustaqbalkeena maanta halkaynu taaganahay meel ka wanaagsan inaynu u saahmin ayaa ayna saaran weliba xisbiga kulmiye iyo ninkii dalkan xilka doonaya qodobkaasaa u yaala. barnaamijka waxaa la sameeyey markaasi la bilaabay xarunta carbiska ee Daraweyne oo laga bilaabay meel bannaan. waxaa kaloo la dhisay xafiiskii hawsha ka howlgeli lahaa. dafcaddii ugu horreysay waxay soo galeen 2019 horaantiisii. waxaan dhalinyarada reer Somaliland ee danaynaysa inay ka qayb qaataan dafcadda saddexaad ee shaqo qaran ugu bushaareynaya in laga bilaabo maanta oo bishu tahay 10 bishii February 2021 ay bilaabantay isdiiwaangelintii ama codsiyadii dafcadda saddexaad ee shaqo qaran. waxaanay ku soo gabagaboobaysaa ama ku eg tahay 20 bisha February aynu ku jirro. haddii alla yidhaahdo dhalinyarada waxaan ku dhiirigelinayaa in muddada kooban oo 10 cisho ay ka faa'iidaystaan ciddii danaynaysaa oo ay Play Store-ka kala soo degaan abkaas macluumaadka looga baahan yahay ee shuruudahana dhammaystiraan. barnaamijku waxa uu lahaa ujeedooyin fog oo ah sidii loo soo saari lahaa dhalinyaro muwaadiniina dal jecel. ujeedada ugu weyn ujeedooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid ah isbarashada ama isdhexgalka dhalinyarada Somaliland ee deegaanada kala duwan. sanadkan shaqo qaran waxay soo kordhisay in la isku diiwaan geliyo qaab online ah waxayna launch garaysay application mobile ah oo loogu talagalay inay dhammaan codsadayaasha barnaamijkani ay isku diiwaan geliyaan. application-kani wuxuu awood u lahaa inuu qabto dhammaan ciddii muwaadiniin aan ahayn waxaana uu ku xidhnaa daytada national ID card-ka. qof waliba wuxuu isticmaalayay national ID number-ka waxaanu meesha ka saarayay dhammaan ciddii aan ahayn muwaadiniin. taaka soko wuxuu ka saarayay dhammaan shaqaalaha dawladda inay isdiiwaan geliyaan. sidoo kale wuxuu u diidayay application-kani inay isdiiwaan geliyaan dadka da'doodu ka weyn tahay 30 jir. application-ka markaad intaa soo dhawaysid waxaad u gudbisay inaad upload garaysid dhammaan documents-ka lagaaga baahan yahay taasoo ay ka mid yihiin shahaadadaadii jaamacadda, shahaadadaadii caafimaadka iyo warqaddii dambi la'aanta. intaa marka aad samaysid application-ku wuxuu toos ugu gudbinayay daytadaada xarunta shaqo qaran. xarunta shaqo qaranna waxay awood u lahayd inay farafaagarayso dhammaan documents-ka aad soo gudbisay. intaa ka bacdi waxaa toos looga wada xiriiriyay application-ka in lagu aqbalay meesha ay imtixaanka ku galaysid iyo dhammaan wixii macluumaada ee lagaaga baahnaa waxa lagugu soo gudbinaya application-ka. sanadkani wuxuu aad uga duwanaa sanadadii hore in qaab aad u fudud ay ardaydu isku diiwaan gelinaysay iyagoo meel kasta jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa iyo gobollada dhammaantood waxay fursaddaa u heleen inay isdiiwaan geliyaan. application-kana u fuduydiyey waxaananu aad u soo dhaweynaynaa in application-kan lasii horumariyo. maanta oo taariikhda miilaadiga ay tahay 20kii bishii saddexaad 2021 waxaana soo gaadhay natiijadii imtixaankii loogu tartamayay dafcadda saddexaad ee shaqo qaran. ilaahay baa mahad leh. waxaanu halkan ka shaacinaynaa natiijadii imtixaanka oo qof kastaaba wixii uu keenay uu kaga bogan karo ama uu ka heli karo bogga xafiiska imtixaanaadka qaranka iyo bogga Facebook uu ku leeyahay xafiiska shaqo qaran oo qof kastaba natiijadii ka dheehan karo. inaan baa iigu jira dadkan maanta shaqo qaranta u baxaya. inankaasi wuxuu ka soo baxay jaamacadda Armas wuxuu malaacamal ahaa imanka muddo sanadkii saddexaad inuu ku jira ma filaya intuu bilaacamal ahaa. intaa rajuun baanu qabno waxaanu lahayn inuu hooyo CV-giisa meel walba uu geystay shirkad kasta uu dhiibay welise ilaahay calafkiisa kama soo saarin. maanta waxaan u arkayaa halkan inay fursadii ugu qaalisanayd uu saaka marayo. dhalinyarada
ama barbaarta shaqo qaran dafcadda saddexaad ee ku soo baxay tartankii ay u galeen haatan hortayda jooga oo waxaan isku soo dhowaynaynaa kulliyadda carbiska shaqo qaran ee Dararweyne ku soo dhawaada deegaanka Dararweyne ku soo dhawaada kulliyadda intiina isku gobol baa ka timaadeen gobolka meel ma wada degayo 10 baa u kala baxaysa 10 goboladii horeeyay 10 ka qaybood baa u kala baxay 10 horimood baa kala galaysa 10 ka horimood kala gashaan waxa looga jeedaa in isla gashaan isbarataan ka baran ka yimid ka seela ka yimid ka meel kale ka yimid ka togdhar gobol walba ka yimid in isbarataan sariirta ku xigtaa ma noqonayso gobolkaagii inaan gobol kale ka yimid buu noqonayaa كبود وريا هوي كبود وريا هوي وريا كبود وريا ولا ما تساعدوا وردن ولا ما تساعدوا وردن كبود ورا سقو وريا هوي كبود سقو ديال قروده ديال قرو سقو كبود سرا كبود سرا كبود مخصوص سرا كبود سرا كبود ما تكبود سرا كبود سقو ديال قرو انا رسول waxaanu kacnaa 5 buura adiga buura shaqada biitidi baan u diyaar garoobaynaa si degdeg ah waxaanu tukanaa salaada subax 5 barka waxaanu galnaa garoonka hadda waxaanu ka aaminsanahay inay tahay shaqo qaran xarunta shaqo qaran ee isugu yimaadee Dararweyne meesha ugu haboon ee dhalinyarada ugu kartida badan Soomaaliland ka soo baxayso sidoo kalena inay tahay meesha ay ka soo baxayaan hal abuurada iyo hogaamiyayaasha dalka sida ay dhacdayba waxyaabaha halkan lagu barto waxa kamid ah structure of states-keenu qaabku u dhisan yahay marka laga hadlayo separation of powers dawladdu maxay qabataa oo sidee dawladdu u shaqaysaa waxa kale oo ku jira rule of law waxyaabaha ku jira waxa kamid ah public service-ka waxa la yiraahdo oo inta badan shaqaalaha dawladda u shaqeeya ayna aqoon badan u lahayn dawladduna kulli focus-ka waxay saartaa waa public horta sida caadiga laguma soo dhigto iskuulladeena waxaan la ilaalinayaa wadaniyada ama civic education mid labaad ardayda waxa ka soo baxeen kulliyado kala duwan sida caafimaadka ardayga caafimaadku wax aqoona oo muu lahayn qaybaha dawladda
sharci dejinta fulinta waxaasoo dhan wuxuu bartay imika waax kasta oo dowladda ka mid ah waxay qabato iyo waxa ummadda ka sugaysay iyo sida loo maamulo wuxuu kaloo ogaaday imika waxa la yidhaha waa maxay citizenship baasaboor la qaataa muxuu yahay qofku inuu dal qura leeyahay waxa kaloo ayna ogeyn badankoodu waxa xaq dalkoogu iyo dadkoogu leeyihiin maanta waxay yaqaanaan waxa xaq loogu leeyahay iyo waxa xaq iyaga loogu leeyahay war kamay qabin shuruucda iyo kala dambeynta war kamay qabin inta badan dhibaatooyinka uu adduunka ku keenay qabyaaladu war saasa kamay qabin daraagiska inagu xeeran maandooriyayaasha iyo halista inagu hayaan war kamay qabin qof shaqaale dowladeeda iyo qof aan shaqaale dowladeed waxay ku kala duwan yihiin war saasa kamay qabin waajibaadka fuulay iyo sharafta uu leeyahay qof dowladdu shaqeeya muhiimadda markaa uu dastuurku leeyahay iyo shuruucda ka farcamta iyo muhiimadda aa idinku leedihiin iyo danaynta la danaynayo kulliyaddan iyo dhallinyarada ka soo baxda sidaa daraaddeed in shaqo qaran la sameeyo waxay ka mid tahay hal abuurka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi sidaa daraaddeed waxaa waajib noqotay in hal abuurkaasi runtii waxa weeyaan la xaqiijiyo idinkuna maanta aad tihiin difcaddii saddexaad waxayna ka mid tahay siyaasadaha cusub ee ay xukuumaddu leedahay ee qaranka lagu hormarinayo hay-adda shaqaalaha dowladda waxa ay dhallinyarada halkan ku jirta siisay tababar ku saabsan xeerka shaqaalaha dowladda ee cusub ee dhowaanta soo baxay xeerkaasi ku tababartay maadaama ay shaqaalo noqon doonaan dhallinyaradan oo shaqaalo dowladeed noqon doonaan waxaan la kacnaa dayaxa waxaanu samaynaa jimicsiyo kala duwan annagoo gudanayna waajibaadka qaranka waxaan nahay maanta waxaan nahay qof la dareemaya ciidanku wuxuu yahay maanta waxaan diyaar u nahay difaaca ciidanka goor kasta iyo goob kasta oona la geeyo annagoo gudanayna waajibaadka qaranka barnaamijkan waxyaalada ugu waaweyn ee uu la dagaalamayo waxaa ka mid ah qabyaaladda iyo qoqobka qaadka tahriibta ardaydu waxay ka kala yimaadeen min bari ilaa galbeed qofna qof ma aqaanin waxa uu ii sahlay inaan barto dadyaabo kala duwan oo ku kala nool inta ka kooban tahay jamhuuriyadda somalilan waxay imikana marayaan inay isku dhaqan noqdeen gobolnimadii ay ka baxeen ka yimaadeen gobolnimadii ay joogaan meel ay kaga abtirsadaan horimaha la yidhaahdo ay kala yihiin sida koowaad labaad saddexaad afraad maalinta khamiistu waa maalin ka duwan gebi ahaanba maalmaha kale maalinta khamiistu waa maalin u astaysan maalin nadaafadeed nadaafadaas oo ah mid deegaanka guud ahaan lagu qaadayo mid guryaha la seexdo lagu qaadayo iyo mid walba iyo mid qof walba gaarkiisa u saaran runtii waana lagu kormeeraa nadaafadaha kala duwan aynu samayno taliye anagoo fulinayna markii aad nafartay gudanayna waajibaadkaygii shaqo waxaan diyaar u nahay inaad lagu kormeerto howlmaalmeedkaygii nadaafadda ahaa iyagoo taliyayaasha xeradu markay nagu kormeynayaan siinaya mudnaanta sida loo kala horeeyo iyo sida lagu kala duwan yahay nadaafadda
waxa kale oo wasaaradda caafimaadku waxay wixii caafimaadka la xidhiidha ay ka mid tahay malaariyada, buufinta, kaneecada, siinta adeegyada caafimaad ay u baahan yihiin uu ka mid yahay COVID-19 talaalkiisa. shaqaalaha daacadii dadweyaan sharaf laho dalkayay dhiigow shuban shaqaalaha daacadii dadweyaan sharaf laho dalkayay dhiigow shuban dareenkooda sharcib dulmigu waa shay ka maqan dadkana shuush kuma rida dareenkooda sharcib dulmigu waa shay ka maqan dadkana shuush kuma ridan markii halkan la yimi iyadoo markii hore markii la joogay magaalooyinka mashquul badan lagu jiray dhalinyartu iyo barbaartu waxay fursad u heshay inay shantoodii salaadood waqtigooda tukadaan kuna tukadaan jamaca iyagoo la kaashanaya macallimiintooda oo kicinaysa oo xilli hore soo faraysa waxa la shicnadu waxay sheegtaa qofku 40 cisho hadduu joogteeyo salaada faralka abid inaanu dib uga tegin waxa kale oo halka ku jirta maanta jimcaha inaanu fasaxnahay oo waxa weeyaan si fiican loo cibaadeysto cibaadada jimcaha la oogo ayna oogaan arday kamida carbiska shaqo qaran يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون waxaan qabayada meesha ku baranay inaad time ku shaqaysid oo wax walba xirada markaa ku jirtid time bay ku soconaysaa haddaad cunaysid time bay ku shaqaynaysaa haddaad garoonka imanaysid time bay ku soconaysaa haddaad shaqooyin gaar ah haysatid time baa ku qabsanaysaa dharkaaga markaa meedhanaysid time baa ku qabsanaysaa daadfur halkan waxaan kala baxaynay waxyaalo ugu muhiimsan ka mid ah inaan time ku shaqaysano oo time ku qabsano dhalinyaradan difacda saddexaad ee shaqo qaran waxay kaga nasiib badan yihiin difacdii hore waxay heleen waxa aanay heli jirin difacdii ka horeeyay koowaad iyo labaad waxaa ka mid ah biro jimicsi oo loo keenay ay ku jimicsadaan waxyaabahaasoo dhan kuwii ka horeeyay may ahayn taas ayay nasiib u heleen runtii macallimiintooda runtii aad iyo aad ugu dadaashay oo tababarkooga aad ugu dadaashay sidoo kale kuliyadda waxaa jooga shaqaalaha rayida oo tiradooda dhan tahay ilaa 22 shaqaale oo ka shaqeeya shaqada ka socota markaasi kuliyadda waxayna u qaybsan yihiin shaqaalihii cuntada kuugtii caawayaashoodii sidoo kale waxaa jira shaqaalo kale ka shaqeeya dhirta dhaqaaleynteeda iyo waraabinteeda
tababarada jindhiska ah ee dhalinyaradu halkan lagu siiya waxaa ka mid ah ciyaaraha oo loo sameeyo horin walba tiim u gaara